Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aabaha korkiisa la isku shukaansanayo ayaa dhalay gabartaani iibisa buugaagta. Maalin ayaa waxa u yimid wiil ay jecleed. Aabaheedna waa dhinac taagnaa. Markaas bay inantii ku tiri wiilkii ay jecleed, miyaad rabtaa inaad iga iibsato buugga lagu magacaabo Aabba guriga ma joogaa, isla markaana uu qoray Jaamac Yuusuf. Wiilkii ayaa fahmay qasadka gabadha, markaas ayuu si degdeg ah ku jawaabay. Wuxuuna dhahay, kaas hore ayaan u soo iibsaday waana akhriyay, laakiin hadda waxaan doonayaa inaad iga iibiso buugga uu qoray Aadan Yuusuf. Markaas ayay gabadhii ku dhahday, buugaagta uu qoray Aadan Yuusuf way badan yihiin ee keebaan kaa iibiyaa. Markaas ayuu ku dhahay, waxaan rabaa buugga lagu magacaabo Inteen isku arki karnaa. Markaas ayay gabadhii intay dhoola caddaysay ku dhahday, weli buuggaas ima soo gaarin, laakiin waxaan ku hayaa mid ka fiican oo ay qortay Istar Mukhtaar oo lagu magacaabo Geedka Cambaha hoostiisa. Wiilkii asigoo isku dayaya inuu qariyo dhoola caddayntiisa ayuu dhahay, hagaag ma suuragal baa in birito iskuulka aad igu keento buugga uu qoray Sakariye Xuseen ee lagu magacaabo 5 daqiiqo kadib ayaan ku soo wici doonaa. In yar kadib aabbihii ayaa inantiisa ku dhahay, wiilkani waxaasoo buugaag ah miyuu akhrin doonaa? Gabartii ayaa ku jawaabtay, haa, waayo wiilkani waa wiil caqli badan oo aad wax u akhriya isla markaana dadaal badan. Aabbihii ayaa ku jawaabay, hagaag waan fahmay, laakiin wiilkani waxaan kula talin lahaa in uu akhriyo buugga lagu magacaabo Anigu Doqon ma ihi oo wax kasta waan fahmay oo ay qortay Mustafa Cabdullaahi. Adigan inantaydii waxaan ku soo iibiyey oo aan ka rabaa inaad akhriso buugga uu qoray Cabdullaahi Bulshaawi, isla markaana lagu magacaabo U diyaar garow birito in aan ku guuriyo in adeerka.